السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاسة أما قاسة وحوية قانامبا أما قاسة وحبسي كور كفرا الله قوشة سرسي. الدنيا dadka waxay ku heshiiyeen dulmi. haddaan idinka dabageeyo saddexda laba wadan qaasatan ee gumeystayaasha ah waa wadanka faransiiska oo wadamada carabeed qaar gumeysan jiray sida lubnaan iyo wadanka ingiriiska ayaa musiibadan ka dambeeyaan. iyagana maanta waxay leeyihiin annagaa taageersan, hiil iyo hooba ayaan la garab taaganahay, iyo maraykanka aabaha weyn adduunyada xasarada ka og. intaanan u gudbin saacadaha u dambeysa hadda dhimashada waxay maraysaa dhinaca falastiin sida wasaaradda caafimaadkooda sheegeen 1400 iyo xoogaa waa dhimashada. dhaawacna 6700 7,000 sii cagcageynaysa. guryo intaasoo malaayiina dumeen lama xisaabi karo. biyo ma laha, koronto ma laha, waxba ma lahan. waxaa ka sii daran isbitaaladii daawooyinka waa ka go-een, dadkii dhaawaca tarab isu saaraya. dhinaca kale markaad fiiriso israa'iil waxay qaranaysaa in 1300 ay ka dhimatay, dad 3,000 ay dhaawac yihiin, ay u badan yihiin dhaawac culus. oo warbixinaday sheegayaan intaas idaacadahooda haddaad fiiriso qanaayaadka israa'iil leedahay ama kuwa aljaziiraba intaba si soo tawinaya. oo markii la wareysto wasiiradooda caafimaadka waxyaalahay tabinayaan. aan ka gudubna marka waxaynu niri dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'iil oo maalintii 8aad galay. Norwegian Consul Reviews waxay hore u sheegeen the world's largest open air prison. Gaza waxa waaye the world's largest, midka ugu weyn ee furan, hawadiisa ee furanta. waa xabsiga ugu weyn 15 sano 20 sano dad meel lagu soo ooday. dhibaatooyinka waa tirada, laakiin xabsigan 20 sano u dambeysay ee dadkan ku jiraan. macluumaadka waxaa ka xigan kartaa iyaga qaranaya. waxay leeyihiin wadankaas waxaa ku nool dhalinyaradu waa 15 sano ilaa 28 sano. waa da-yar ay u badan yihiin. waa 3 jiil 4 jiil dadkii waalidiintoodii halgankaas ku dhintay. su-aal, dagaalka xamaas dad badan baa muslimiina isweydiinayo oo tushuush furayo. dagaalka xamaas kama fiirsan ma la is odhan karaa? dad badan saasay aaminsan yihiin. macnaha waxay leeyihin intaanu khasaaraa la geystay, intaanu dhibaataa la geystay, maxay dagaalka u qaadeen? jawaabtu waa maya. mar la weydiiyo hogaamaha xamaas qeybta dagaalka ku jira, qeybta u qaabilsan dagaalka, kooxda al-nizaam la yiraahdo, wuxuu yidhahday israa'iil waa caadadoodii. waxay mar walba duqeeyaan waa yeelada caruurta iyo dumarka, wax cusub maahan. haddaad dagaalka gasho iyo haddaa iska dhaafto koryaasoo lagu duqeynayr. marka waxaa wanaagsan inaad sharaf u dhimato. wuxuuna soo qaatay, wuxuu yidhaahday xanuunka waa inaad dareensiiso qofka suu kuula dareemo. ilan qofka markay dhibaatada asay culeyska gaarto wuu qiranaya in dhibaato ku haysato. laakiin haddii aad kasaale aada gaajeysan tahay oo qofka kale gaajo arkay, gaajada waxay tahay ma dareensana. marka sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay waan ka fiirsanay, waa istaraatiijiyan ka fiirsanay. waa siduu leeyahay isaga. wadamada haddaynu soo qaadano hiilka u muujiyey wadanka israa'iil waxaa ka mid ah 28 ku jira AU. saa la socotaa gabadha u sarreysay waxay shalay joogtay wadanka magaalada Jerusalem ay joogtay iyadoo tusaysa inay garab taagayiin. waa 28 dowladood ee ka tirsan AAU.
maraykanka u horeeyo markabkiisi weyne soo diray diyaaradaha doorta ku wata wuxuu kasoo doonay waa su-aashii ordagal leeyahay muxuu kasoo raadiyay halkan iiraan waxay leedahay maxay kasoo dooneen xasarad bay abuuraya layiri ruushka saasuu leeyahay isagana wadanka canada ingiriiska kenya imaaraad iyo qolada u gashay heshiiskii ibrahim accord imaaraad dadka la socdo dad badan bay ka dhaadhicisay sudan waxay ka dhaadhicisay morocco wadamo dhowr ay ka dhaadhicisay barnaamijkan iyo dadkaas ukraine iyo wadanka australia oon ka tegaya isagana intaas wadan waxay leeyihiin waan garab taaganahay gar iyo gardarro oo waan ku taaganahay waan ku taageersana wadamada israa'iil diiday inay taageeraan oo wadanka shiinaha oo leh two state solution u baahanahay ruushkoo siyaasad ahaan isku hayaan oo arrinta ukraine oo isagana dhinaca kale ah oo leh way qaldan yihiin african union oo iyagana qaraar soo saaray leh waxaynu u baahanahay two state aa loo baahan yahay waxaa ka mid ah wadanka venezuela oo taqaanaan malaysia iyo wadanka south africa on ka tegay oo si cad oo caddeeya isaga mowqifkiisaas kenya oo dabamarteyn ku sameysay go-aankii african unionka madaxweynaha ruto kenya statement u soo saaray wuxuu yiraahday waxaan taageersanahay dadka israa'iil saala socotaan kenya waa maxmiyad reer galbeedka iska leeyihin oo east africa ku taala haddaad ogtihiin haddayda ogeenba laba wadan ay aada u adeegsadaan military ahaana waxay adeegsadaan marka diiniya la yiraahdo wadanka etoobiya kuwaana waxay adeegsadaan xagga dimuqraadiyadda marka ninka AAU-da haysta muuse faqar committeeskaasuu kusoo qoray bartiisa 7 bishii markii arrinta dhacday wuuna caddeeyey barnaamijkoodii saxda iiraan oo qaadatay doorkii laga rabay inay dowladaha carabeed qaataan iiraan ma laga banin warkeeda waxay tiraahdaa anaga mar kastaba dadka iska caabinta xamaasan taageersanahay ciidamo anaga nagama joogaan meesha ku celcelisay laakiin waxay u baahan yihiin caawinaad iyo dhaqaale iyo hubwasiinina taas waa markaad fiiriso waxay muujinaysaa reer galbeedka siday u leeyihiin anaga hil iyo howl aan la taaganaha israa'iil ay iyadana jaanibka kale mar walba meeshu maraykan uu galaba iyada dhinaca kale bay ku jirtaa waa sida caadiyed waxaan rabaa wax yar inaan dul istaago aaway dowladihii carabeed marka dowladihii carabeed jeer bay qabsadeen oo isu yimaadeen go-aanay qaadan lahay shacabun carabiya kama hadlayo adowla alcarabiyan ka hadlayo dowladaha carabta shacabka haray tacbaan layihin runtii walaalahood la gumaadayo masraali ka ahayn meel kastoo joogaan laakiin waxay isweydiin badan dowladihii carabeed waa la aamusiyey kama hadli karaan qadiyadan oo sababtoo ah waxa waaye dadna kuwana xiriiraya wax la suubiyeen israa'iil oo cilaaqaa kala dhexaysa sida imaaraad oo kale kuwana waa diidan yihiin oo maaragtay waa la aamusiyo arrintii kama hadli karaan oo bressure ayaa lagu hayaa 3 wadan aada u hanjabayso oo leh cunuqabateyn gaara la siiraya waa faransiiska iyo maraykanka iyo ingiriiska 3daba waxay leeyihiin ninkii usoo banbaxa arrintan meel baynu saarayna laakiin iiraan kama gaban warkeeda way caddaysay waxaan rabaa wax yar inaan dadka eela sunnaha muujiyo iiraan waa dowlad shiiciya saasay tahay qadiyadan oo kale in loo adeegsado waa muhiim laakiin iyada laftirkeeda u baahan iska ilaalin gooniya weli lama hayo taariikhda iiraan inay maaragtay wadamada sunniga inay gumaada dadka sunniga waxay ciraaq ku suubisay waa taqaaniin sunniyiintii ciraaq joogeen kuwa syriya joogeen taariikhda dib u akhriyaan waad helaysiin marka yaa xamaaso ku qaadin iiraan waxa waaye qadiyadan oo kale in loo adeegsado way fiican tahay laakiin laftirkeeda iska ilaalin gooni u baahan farisiyiinta arrintoodii ilgaaray u baahanta aaway dowladdii bakistan cimraan khan waa laga tuuray xabsiya jeelka loo dhigay guntada yaa jooga waxaa jooga dowlad reer galbeed gacan ku ramis ah oo bakistan ka jira oo ajendaha reer galbeedka fulisa
away doorkii turkiga maalintii saddexaad markuu dagaalka socday ayuu Erdogan hadlay runtii waa ku kaliyeystaa is leedahay isagana wuxuu isku dayay inuu dowlad dhexdhexaad iyo in meeshii laga sameeya maraykanku toos u duqeeyey Israa'iil waxyaalo ku duqeeyey laakiin haddana dhinaca caawinaad waxa malaysay dowladii carbeed waxa ugu roon waqtiga la jooga is leedahay dowladda Masar oo qaadatay go'aan in mucaawino la gaarsiiyo walaalahaas oo marinka rafa furto waxa la isku hayaa marka marinkaas waxa loo furi lahaa marinka waxa loo furi lahaa waxa waaye Israa'iil waxay rabtaa reer shacabka Falastiin inay ka soo baxaan meesha oo ay ka soo baxaan oo qaxooti ku noqdaan 4 milyan wadamada carbeed hore ugu noqdaan kuwaana inay qaxooti ku noqdaan oo wadanka sida ku qaadato ajandaheedu waa saas laakiin wadamada Turkiga iyo Masar waxay leeyihiin lama furaayo dadka wixii dhimanayna ha dhinto wixii noolaana ha noolaado wadankoodii ha joogaan sababtoo ah meeshaas wixii loogu qaban karaa loogu qaban khasaaraha dagaalka ma geystay xoogaga iska caabinta u dhaxay Israa'iil uu geystay labada dhinac dhimashadii dhaawac badan buu geystay sidoo soo sheegayba waqtiga la hadlayo hadda dhinaca Falastiiniyiin 1400 iyo xoogaa maraysa dhimashada dhaawacna 6700 sidii la soo warinayo dhinaca Israa'iilna 1300 dhimashada 3000 dhaawac burburka guryaha khasaaro badan baa soo gaaray dhinacan xalaa u dambeysay magaalada Tel Aviv gantaa 220 kilomitir gaaraya sida Al Jazeera ay sheegayso ayaa lagu soo tuuray taa waxay tilmaamaysaa marka awoodda wali inay jirto Xamaas cagaha dhulka ku hayaan biyo la'aan baxsan biyo ma jiro meeshii dowladda Israa'iil biyihii watay xirtay korontada waa intii la damiyey waxaas oo dhan diyaaradihii Israa'iil laftirkeeda caqabad kala haysta xagga dhaqaalaha diyaaradihii internationalka kulli waa la kansalay wadamada qaarkood mar walba alarmiga yeeraya oo gantaalina soo socdan ayaa meelaha ka dhawaaqaya waa sida iyaga sheegayaan gargaar caafimaad ma jira oo dhinaca Falastiin ah sababtoo hay'adihii waa burbureen isbitaaladii waa la garaacay diyaaradaha duqeynayo waxaasoo dhan dadka waa yeelada iyo dadka la mid waxa shalay ugu naxdin badan dadka la yiraahdo oo carara dhinaca koonfurta baabuur ay dad family saarnaayeen ee gantaal la heshay dowladda Israa'iil marka taa waxay tilmaamaysaa in xuquuq insaan loo aabiyeelay in xuquuq insaan ma jiro away waxyaalihii lagu dimuqraadiyada iyo maaragtay wixii la sheegay ma jiro marka waxyaalaha ugu daran waxay tahay dowladda Faransiiska waxay ku dhawaaqday in aanan qofna baxs sameyn karin shalay laakiin shacabku waa shacab adag muslimiinta already waa banaan baxeen marka taa waxaa arkaysaa runtii inay arrin sahlan ahayn dowladaha reer galbeedkana aysan dhexdhexaad ka ahayn oo nabadna meeshaas ilaahay inuu keeno mooyaane dabka iyaga dhinac ka horinayaan marka waxaa laga cabsi qabaa marka duulaankani wadamada carabta ku faafo dhinacaas xisbullah ka hanjabaysa digniinay Faransiiska iyo Mareykanka u diraan le xisbullah ma soo geli kartid marka ninkii Donald Trump aad ka dabageeya hadlay shalay wuxuu yiraahday bal maxay noqon lahayd yiri haddii dagaalka xisbullah iyo Iiraan soo geli lahayd Xamaas kaliya Israa'iil u taaglaaday oo waraysigiisu bixiyay asaga oo bartiisii caadiga wararka soo geliyo oo ka tabiyay marka runtii adduunyada meel u socoto lama garaayo adduunyadan dadku waxa isleedahay dulmi ku heshiiyeen nabadda dadka markay ka badatana isqaadqaadku baabata adduunyadan rabbiga gacanta ku haya isagana maamula laakiin anaga waana la eegaya waxaan suubino ilaa waxaan ka rajayn walaalahaas muslimiinta dhibaataysan dhibka inuu ka qaado walaalaha dhammaan waxay keentay meel kastoo joogtaanba amaan Allah